Sarah waxay la qabsatay oo caado ka yeelatay inay caawiso dadka caawinaadda u baahan. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaa xanuunsatay hooyadeed, saacadna kama aysan tagin oo waa ay kor taagneyd. Habeenkii oo dhan waa ay soo jeeday, waxayna kor taagneyd hooyadeed ayadoo caawinaysa, waxayna ahayd mid ku siisa daawooyinka iyo cuntooyinka xilliyada loogu talagalay. Waxay arrintaa ku jirtay ilaa ay ka qalin jebisay jaamacaddeeda kulliyadda kalkaalisanimada. Markii ay dhammaysay, waalidkeed waxa ay ka dalbadeen inay waqtiyada qaar ay siiso inay caawiso dadka u baahan ee fuqarada ah. Iyadoo dhoola caddeynaysa ayaa waxay ugu jawaabtay, taasi waa riyadeeda. Marka ay ka heshay shaqo mid ka mid ah isbitaallada ugu waaweyn magaalada, waxa ayna maalin walba booqan jirtay dadka fuqarada ah si ay u caawiso. Marka ay ku soo noqoto gurigeeda, waxa ay dadka weydiin jirtay ma waxaa jira qof xanuunsan oo u baahan in la daweeyo. Mar walba waxa ay qaadan jirtay boorso ay ugu jirto qalabka loogu talagalay in lagu sameeyo gargaarka degdegga ah, iyo wax walba oo ku saabsan qalabka caafimaadka loogu talagalay oo iyadu ay ku soo iibsatay lacagteeda khaaska ah, si ay u yareyso xanuunka uu dareemayo qof walba oo sabool ah, iyo qof walba oo soo waco si ay ugu dhaydo dhaawac ku yaalla, ama in lagu mudo cirbad, iyo qofkii u baahan in loo diyaariyo qalliin. Wax walba waxa ay ka bixi jirtay lacagteeda khaaska ah. Qof walba oo u sheega inay lacagtan meel uga dhigato arooskeeda, waxay ugu jawaabi jirtay, waxa iga wanaagsan waxa aan ku caawinayo masaakiinta, waxaan u bixinayo Ilaahay wajigiisa. Hana ilaawina in xabiibka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu dhahay, waxaa liibaanay qofkii Alle uu gacmihiisa yeelay furayaasha khayrka. Maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo joogta isbitaalka oo sugayso dhakhtar la yiraahdo Dr. Yusri si uu ula galo qolka qalliinka, waxa uu imaatay dhakhtarka walaashiis. Waxayna u sheegtay inay soo dhaweyneyso ninkeeda oo safar ka imaaday, gurigana ay uga soo tagtay hooyadood oo xanuunsan oo cidna aysan la joogin. Waxayna u sheegtay in uu soo booqdo hooyadood maadaama maalmahan uusan u imaanin. Sarah markii uu u imaaday dhakhtarkii, waxa ay u sheegtay fariintii ay ugu reebtay walaashiis. Markii ay aragtay Sarah in uusan ahmiyad siinaynin, waxa ay qaadatay cinwaanka, waxayna aaday guriga. Waxa ay bilowday in ay caawiso hooyadii, waxayna u sheegtay in uu soo diray wiilkeedii oo uu ku mashquulsanaa arrimo kale oo shaqada ah. Muddo usbuuc ah, maalin walba marka ay ka timaado shaqada, waxa ay imaan jirtay guriga hooyadii, waa ayna caawi jirtay. Maalin maalmaha ka mid ah, hooyadii waxa ay wacday wiilkeedii si ay ugu mahadceliso qofka uu soo diray si ay ugu khidmeyso. Gabadha uu soo dirayna ay si wanaagsan ula dhaqantay, aadna ay ula dhacday, ayna jeclaatay. Dr. Yusri waxa uu la yaabay hadalka hooyadii, waxa uuna dareemay in uu ka gaabiyay xaqii ay ku lahayd hooyadiis. Dabadeed wuxuu u yimid Sarah si uu ugu mahadceliyo waxa ay u qabatay hooyadiis. Sarah waxay ugu jawaabtay, tagidda aan u tagay hooyadaa maahan mid ay kaga maaranto aragtidaada, waayo waa ay ku xiistay. Waxa uu isbarbardhig ku sameeyay Sarah iyo gabadh oo uu horay ula sheekaysan jiray, gabadhaas oo uu dhalay maamulaha isbitaalka. Gabadhaas waxay ahayd mid ula dhaqanta dhakhtarka si ay ku jirto isla weyni, mar walba uu isku dayo inuu ka soo ag dhawaado ama uu la hadlo. Halka Sarah ay ahayd gabadh qalbi wanaagsan, taas oo uusan arki jirin ilaa iyadoo caawinaysa qof bukaan ah.
iyo iyadoo tukanaysa salaada ama akhrinaysa Qur'aanka Kariimka. Dadka isbitaalka jooga oo dhan waxay ahaayeen kuwo jecel Sarah akhlaaqdeeda wanaagsan aawadeed. Isbarbardhiggiisa waxa uu soo baxay in qalbigiisu uu aad ugu jeestay xagga Sarah. Markii uu soo booqday hooyadii, waxa uu la yaabay in hooyadii ay ku dhahday Sarah guurso. Waxa uu soo aaday familkeeda, waxa uuna ka dalbaday guur. Markii Sarah ay la yaabtay soo doonashadiisa, waxa uu ku dhahay, wallaahi waxaan ahay mid nasiib badan. Haddii aan adigu helay, waxaan helay diamond aad qaali u ah oo uusan helin ilaa qof Ilaahay raalli ka yahay mooyaane. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah.